guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka oo runtii kulamo ka horreeya kulankan aan wada lahayn ayaa waxay maanta soo bandhigayeen qodobada dib u eegista lagu sameeyay dastuurka qodobka koowaad ilaa iyo qodobka shanaad cutubka koowaad ilaa iyo cutubka shanaad oo runtii ay ka sameeyeen presentation munaasab ku ahaa inuu xog badan ka helo mar walba baarlamaanka Soomaaliya oo gudiyadani ay ku matalayaan qabashada hawshaas laakiin ay waajib tahay mar walba meesha wax marayo iyo waxa isbedelaha dhacay inay u soo gudbiyaan in aysan suurtagal ahayn mashruuc inuu noqdo dastuurka Soomaaliya uu yahay masiir umadeed dadka la rabo in ay masiirka ummadda si ku haboon uga hadlaan waxa maslaxadooda guud iyo maslaxadooda gaar ahaaneedba ay wadanka ugu jirto inay tahay arintan la xidhiidha dib u eegista dastuurka maalinba maalinta ka dambaysa mashruuca si noqonaysa in waqti aad u dhow la soo afjaro qodobadan muxuu ahaa cutubyadan hadda wax laga bedelayna markii la isla garto waxa laga bedelay ay u baahnaayeen in laga bedelo in muxuu ahaa go'aan laga wada qaadan doono